madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dhamaatay heshiiskii xabajoojinta iyo afgaradkii u dhaxeeyay Mareykanka Iran. Waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda Iran iyo Mareykanka iyo waradii ugu dambeeyay labada dhinac ay isdhaafsadeen. qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heenayana waxaa kamid ah Trump ayaa si rasmi ah u jaray dhammaan xiriirada dhaqaale ganacsi ee uu la lahaa dalka Spain isagoo sheegay Spain inuu yahay dal xumeeyay isla markaana ka tirsan isbahaysiga NATO. waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay shirka ka socda NATO ee dalka Turkiga ka furmaya ee u dhaxaya madaxda dalalka NATO. qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doona iyana waxaa kamid ah Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga oo ka hadlay shirka NATO ee ka socda Ankara ayaa sheegay in xalka labada dawladood ee Falastiin iyo Israa'iil uu yahay kan ugu wanaagsan oo lagu xalin karo xiisadda labada dhinac, laakiin uu sheegay inay jirto hal dhinac oo diidan taas oo Israa'iil waxa laga fariisan laayahay hal laga heli laayahay waxa uu leeyahay waa Israa'iil. waxa uu ka hor leeyahay NATO horteeda Trump hortiisa ayuu si daran ugu cambaaray Netanyahu iyo maamulkiisa. qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa afayeenka ciidanka Iran Ibrahim ayaa caawa digniin adag u diray dhammaan dalalka Carabta ee Mareykanka saldhigyada uu ku leeyahay. waxa uu leeyahay waxa idinku soo maqan oo aad dhadhamin doontaan droneska gantaalada Iran. waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay ku saabsan xiisadda bariga dhexe caawa marka la kaaloriya. aynu ku bilowna barnaamijkeena habeenimo caawa. madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay galabta in ay dhamaatay waxa uu yiri it's over way soo dhamaatay MOU-gi Memorandum of Understanding-ki is afgaradkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran. waxa uu sheegay weerarada Iran ay ku qaaday maraakiibta saddexdii markab iyo jawaabtii Mareykanka uu ka bixiyay ahayd in uu si daran u duqeeyay oo u beegsaday gudaha dalka Iran waxay noqotay dhamaadka iyo duqeyntii Iran ay ku beegsatay dalalka Bahrain iyo Kuwait oo saldhigyada Mareykanka ay ku yaalaan. inta aynu u gudbin faahfaahinta kale ee la xiriira xiisadda labada dhinac bal aynu eegno Trump markii uu ka hadlayay in uu dhamaaday MOU-gi ama is-afgaradkii Iran iyo Mareykanka ee lagu gaaray dalka Switzerland. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Whoa. Whoa. kaasi waxa uu madaxweyne Trump oo sheegay I think it's over. way dhamaatay aan u malaynaya. waxa uu leeyahay I can't deal with them anymore. inta kadib lama macaamili karo. They're led by sick people. dad xanuunsan ayaa hogaaminaya oo aad u liita oo iskaama khiyaamo badan. waxa uu marka horena ku sheegay hogaanka dalka Iran inay yihiin dad wanaagsan oo hogaankii hore ka wanaagsan. isaga un baa sheegay afkii uu shalay ku amaanayay ayuu maanta ku caayaya. waxa uu leeyahay way u dhamaatay oo wayna khiyaameen wayna gaadeen. hore loo sheegay wada hadallada Iran iyo Mareykanka is afgaradkii 14 qodob heshiiskii Switzerland in negotiatorska wada xaajoodiyaasha dhanka Iran in ay la tageen qodobo cadcad guusha heshiiskan dhinaca Iran u jiray. waxa hadda muuqata Trump inuu adkeysan waayay eedaha iyo ceebaha dhinaca Mareykanka uga imaanayo in looga guuleystay dhanka wada xaajoodka haddana uu door bidayo dhinaca iyo dagaalka. waxa uu wax ka qaban laayahay dhinaca iyo Lubnaan. Israa'iil wali waxay weerar ka wadaa Lubnaan. Trump waxa uu mar kale ku celiyay oo uu leeyahay way joojinaysaa Israa'iil weerarada ay ka wada Lubnaan, laakiin taasi ma ahan mid shaqaynayso. si kastaba ha noqotee saaxiibada qiimiga lahow. dhinaca kale Trump waxa wax laga weydiiyay Erdogan. waxa la weydiiyay Erdogan iyo Netanyahu way isfahmi laayihiin isma aqbalaan aad buu u cambaarayay bal arrinta ka waran baa lagu yiri oo Netanyahu diidmada u diiday Erdogan. waxa ag fadhiyay madaxweynaha dalka Suuriya Ahmed al-Sharaa markii su'aasha la weydiinayay Trump waxa uu yiri I think isma fahmayaan labadooda isma jeclo Netanyahu ma jecla buu yiri Bibi ma jecla laakiin aniga Erdogan waxaan u arkaa nin wanaagsan waa friend buday waa saaxiib waana xubin kamid ah NATO
aniga aad baan isula jaan qaadnaa ila daawo. Prime Minister Netanyahu has been critical of aspects of your relationship in the last couple of days with President Erdogan of Turkey. He said that Erdogan has imperial ambitions on neighboring countries, presumably including Syria. Well, he hasn't been involved with Syria. If you think, he hasn't been involved with Israel at all. And he's left it alone. I wouldn't say he's a friend, because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu, of Bibi. They don't get along, I think. But, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country. And Israel, we've done, no president's done as much for Israel as I have. Nobody even close. If you look at, just look at all the things with Jerusalem, all the different things that we've done. waxa uu yiri Erdogan isma fahmayaan Netanyahu laakiin ani saaxiib wanaagsan ayuu yahay waa xubin waa wadan fantastiga maxna aad buu Erdogan u amaanay laakiin wuxuu leeyahay labadooda isma fahmayaan Israa'iil waxaan anigu u qabtay cid u qabatay malahan buu dhahay Jerusalem inaan safaaradooda soo hor waxa soo dhan markaa fiiriso maxnaha waxa cajiiba in Mareykanka uu ku faanay wuxuu Israa'iil u qabtay wadamada muslimiinta ee Falastiin ay u qabtaa inay ka baqayaan waxyaabaha maanta adduunka ka dhacay markaad fiiriso waxay saaxiibada qiimiga loo ninkii Netanyahu oo ku dhacday horta Trump wuxuu leeyahay aniga dantayda fiirsanaya qodobka xiga barnaamijka wali waxaynu ku jirnaa wararkii shirka ka socdaan kara ee NATO iyo hadallada Trump ee yaab kale ka soo yeerayo hadallada ka soo yeeray Trump waxa sidoo kale kamida mar wax laga weydiiyay in Israa'iil ay ka soo baxayso Lebanon wixii waa laga soo saaray way ka soo baxayaan dhinaca kale Trump waxa uu sheegay dal uu aad uga careysan yahay waa dalka Spain waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay maantay in uu dhamaaday ay joojinayaan terminating hold all the agreements oo kala dhaxay dalka Spain dhammaan heshiisyadii kala dhaxay Spain dhaqaalaha ganacsiga dhammaan waa afjarnay buu dhahay wuxuu ku sheegay Spain inuu yahay dal xun oo aanan danaha Mareykanka xeerinaynin iyo saaxiibtinimada waa dal NATO ka tirsan laakiin wuxuu ku sheegay good partner maahan maxaa lagu haystaa Spain laba arrin baa lagu haystaa dagaalkii Iran lagu qaaday uu ka soo horjeestay aad buu u diiday uu ka soo horjeeday Spain way diiday Petro Sanchez culays weyn baa lagu saaray laakiin wuxuu sheegay in Israa'iil iyo Mareykanku waxay wadaan ay tahay dambiyo dagaalka Gaza Israa'iil uu ku diiday Netanyahu wuxuu qabateen buu saaray dambiyo dagaal buu ugu yeeray wuxuu sidoo kale diiday dagaalka Lebanon ka socda waxa uu ka soo horjeestay bishii labaad dhamaadkeedii 28kii weerarkii lagu qaaday Iran sharci darro ayuu ku tilmaamay intaas oo la isku daray Trump uu ka carooday waxa uu hadda ku dhawaaqay xiriirka Spain iyo Mareykanka ee ganacsi inuu dhamaaday ila dhageyso Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. They treat this man terribly, and this man's a good man too, great man. They're lucky they have him. But Spain doesn't agree to anything, and you shouldn't carry him. I mean, you sort of automatically carry because you're protecting an area, so they're there. So they probably figure they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Yes, take it immediately. Don't even talk to them. They're hopeless. Trump madaxdiisii iyo xogeyaashiisii wasiiradiisii wuxuu la dhaqmayaa sidii maartay shaqaale yar oo maqaayad uga shaqeeyo ama uga shaqeeyo maartay meel uu nadaafad ka sameeyo oo kale wuxuu leeyahay wadan dhan dawlad iyo shirkad way kala duwan tahay dawlad marka la macaamilayso shirkad la macaamilayso way kala duwan tahay marka business aad leedahay saar rabtaad amarka rabtaad bixin kartaa laakiin markay dawlad tahay dawlamaasiyad baa jir nidaam wax loo shir jira isagoo ku jiro xogeeyina tan oo ag fadhiyo wuxuu leeyahay cut all the trade with Spain macnaha meeshuu ka soo gaaro go'aanka gaaraya maba ka fikirayo wax laga doodo laga fikiro consequence ma jirto cut all the trade ayagoo ordayno imaan doonaan ayagoo rafana ayagoo ordayno soo noqon doonaan cut all the trade including the visit حتى أي كجرتو كوا باقشة نوعي ماني حتى مرة نسبين إن صوب باقت no we don't want them cut أنا أدون كده مبالا يسيا كبر أنا وحيابا أدونك ما أنت كده عي وحياب لواي مدحويني مرايكن كأدونك وقوع يارا يا سيدو إساق دون بلاك سيدو أولا دقم إسبين ودن كاس وين
because maxaa aniga ii fahmi weysa waay haddaadan aniga wadadeeda qaadin markaasuu xitaa xoogihii neeta lacaynaya macnaha kind of asaga ammaanu ka dhigi laakiin aflagaado this man ninkan is great man they are lucky to have nasiibay leeyihin inay haystaan this man is great man adduunka dhan ninkan business wadi jiray madaxweyne ma ahaan jirin hadda adiga nin business wadi jiray aa madaxweyne ka dhigato wadanka sida ganacsiga u dhaqaya sida wadan uma macaamilaya adduunyada dhan buu kugu diraya go'doon buu gelinaya haddaa nin NGO la keensato wadanku wuxuu kula dhaqmay sidii NGO inuu yahay waa sida xaqiiqda tahay sida NGO-gii ay wadanka maanta dhan wax la gurto wax la kala farsamaysto NGO-gu dhan aba khiyaano socotaa haddaad keensata nin military ah sida madaxweynaha Uganda oo kale wadanka dhan isaga la isku malaya qofku roo madax ka jir qofku roo dil qofku roo xiri suura u dhaqmaya he doesn't even care sida Sisi iyo Yoweri Museveni they don't even care siyaasiga waa inuu noqdaa qof fahamsan diblomaasiyadda adduunyada sida loo macaamilo luqadda diblomaasiyadda waa inuu yaqaan waxas ma jiro xogeeyayna taxale just a great man waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shirkii NATO loo fadhiyo magaalada Ankara ka dhacay waxa dhanka ka fadhiya Trump waxa ku soo xiga xogeeyaha NATO Rutte isagana dhaxdooda waxa ku jiro xogeeyaha NATO Trump iyo Erdogan way isku dhaweeyeen hal qof la u dhaxay si toos oo Erdogan wuxuu u garaacay Israa'iil wuxuu leeyahay halka Israa'iil iyo Falastiin wuxuu ku jiraa halka labada dawladood si kala problemkooda kuma soo dhamaanay halkaasna waxa diidan buu leeyahay Israa'iil baa la marsin la ayaa buuna si kala xal lagu ma gaaray wuxuu dhahay dhibaatada Gaza lagu wado dambiyada loo geystay dambiyada laga galay reer Falastiin Lubnaan dhibaatada ka taagan waxa soo dhan waxa wado dhahay Israa'iil macnaha la socda Turkiga waa wadanka kali ah ee muslima ee NATO ku jiro waa wadanka kaliya muslima NATO ku jiro intaad aqoonteeda aqliga u gaarsay wadan kale oo muslima NATO ku jiro mana Turkiya madaxweynaha kaliya ee muslima ee NATO ku jiro waa Erdogan soo raadi Erdogan kaligiis waxa kale oo dhan waa isku saf waa milla markaas wuxuu si xay u hadlayaa in Israa'iil fidnado dhan ay wado ugu yaraan hal cod baa meesha u yaala reer Falastiin iyo dadka kale muslimiinta ila daaw İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. waaye dadka qaar waxa laga yaabaa inay dhahaan Erdogan hadal kaliyo haya wax ma qabto laakiin ogow hadalku waa hilo wax la'aan buu dhamaa waxa isweydiyaa hadii meesha Turkiga ku jiri lahaa meesha Turkiga maanta neeta kaga jiro Imaaraadka day kaga jiri lahayd ka war Falastiin oo dhan magaceeda ma soo qaadi lahayn shaki igama jiro xitaa Mohammed bin Zayed ma u maleynaa inuu dhihi lahaa Falastiin babu ka hadli lahaa mis boqorka Morocco meeshaas joogi lahaa never shakilaan ugu yaraan ninkan Spain iyo dalalka kale iyo garabka helaaba waxba garab siinay cod buu helaya xitaa waxbuu dhaqaajinaya culays buu ku Israa'iil aan Israa'iil way ogyihiin meesha kaliya culays ku ah inuu yahay Erdogan waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijka beenimada waxaynu ku soo afjaraynaa afayeenka ciidanka Iran Ibrahim Zulfagari raalli hada Ibrahim ayaa sheegay caawa digniin adagna u diray dalalka Imaaraadka Qatar Sacuudiga Kuwait Bahrain Oman Jordan iyo dal walba oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin saldhig Mareykanka saldhig military uu ku leeyahay xiisada Mareykanka Iran waxa ay gaartay mar kale meeshii ugu khatarsanayd tan inta ay labada dhinac heshiiskiisa afgaradka ahaa 14 qodob Switzerland ay ku saxiixdeen waxa bilaabatay shir jaraa'idkii hanjabaadii Trump uu soo diri jiray iyo Ibrahim oo isagana bilaabay in uu hanjabo Zulfagari waa nin aan gamban oo aan xin fariinta oo ka wada militariga dadka Iranna si toos ah u gudbiyo waa kana Ibrahim mar kale caawad war ay ku seexan karin ama dhagooda aan facaynin Imaaraadka iyo wadamada Khaliijka u diray زکل شمگیا لوزونه خم ایران همه پوئرت همشولاش شل کبلان ای حتی از سیاسوایی تا جنرالیم و انا شی حد ساوا شلاخم و هنهاگا همه دینیت ها پولیتیکاییم و روش ای همه مشالا کلام رک میشتم شیم بخم کم اگن انوشی
اسپیرالات هشتیکاشنوتسرا i tot särskild oligarchia finansit. יצרני נשק, כלי תקשורת ועיתונאים שחוצבו במוחכם כדי למנוע מכם לשים לב להתפוררות ולנפילה של משטר הכיבוש. היכן נמצאים הפוליטיקאים שלכם, אנשי הממשל, אנשי הצבא והגורמים המרכזיים ומוסדות הביטחון שלכם במהלך הימים שבהם אתם תחת אש וקשה לכם להבחין בין יום ללילה. xaaladda caawa ma sahal ninka hadduu mar khamaqno xaalka waa galab ma sahlano xiisaddu way ka sii daraysaa labada dhinaca waxaa la isdhaafsanayaa hanjabaado waxaa heegan la sheegayaa in ay ku jiraan nidaamka difaaca dalka dalalka carabta sida imaaraadka iyo kuwa kale waayahay saaxiibada qiimiga lahow intaa ayaynu barnaamijkii habeenimo caawa aynu kusoo gabagabaynaynaa wixii soo kordho hadday degdeg xaaladdu noqoto warar kale oo degdega soo dhacaan si toos ayaanu idinla wadaagi doonaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyada ilaahay dushiina haata assalaamu calaykum